أصحاب الكرام سلام تسليما كثيرا وبعد درس كيف فقه قابل كل أحجرني waxa aynu qaadanayna kolba baab si guud mara baabkan wuxuu ka hadlayaa al-iimaan wa nudur dhaarta iyo nadarka oo dadku marar badan way dhaartaan mararka qaar koodna nadar bay galaan marka taa iyo xukunkeeda ayaa aynu arki doonaa insha Allah dhaarta shayga la yiraahdaa waxay u qaybsantaa dhaartu saddex qaybood yamiin munaqida wal yamiin al ghamus wa yamiin al lagw dhaartu saddexdaas ay noqotaa dhaar waxa la yiraahdaa marka hore iyadoo magaca Ilaahay lagu dhaarto ay yaxlifa shakhsu bismin min asmaa'ihi ta'ala إلهي مقعيسة مقع كمدة إلهي أسماديسة iyo sifaadkiisa talaa waxa kamid noqon kara diinta Ilaahay quraanka Ilaahay quraankan ku dhaartay diintan ku dhaartay waxa weeyaan si kolka loo eego ee quraanki waa sifadii Ilaahay marka horta bal inta sifooyinka iyo asbaada ayaa la isla waafaqsan yahay rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam وحول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قفك دارنا يا إلهي هكو دارت أما هيسكامس مركالكا وحا النبي قديدي وحيابها كلا لقو دارته حديثك وحا وصابح وقت أصحاب تقاركو سيدا عمر بن الخطاب يوكلا أيا أبيه كو دارت وانا يسكدعي جرتي قفك إنه أبيه كو دارت كان النبي وحده عليه الصلاة والسلام ورقفك دارنيا إلهي كو دارتا ما هيسكامس أسماء إلهي صفات كيس وسيدaba waxay sheegaysaa marka aad shay ku dhaaranayso waa waxa agtaada ugu qadarin weyn waxa agtaada ugu qiimo iyo qadarin weyn ayaad ku dhaaranaysaa kaasina inaga agteena waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala saadaradeed buu warqofka dhaaranaya Ilaahay ha ku dhaarto asmaadiisa iyo sifaadkiisa haddii kala ha iska aamuso dambi buu galayaa waxa inaga qudhigeena iska dhacaysay dumarkuna inay dhaar gaar lahaayeen raguna uu dhaar gaar lahaa qooriyo xaraala jirayay wati geelayaga la qaadaaba jirayay garabkaaga waa tangeeri ku baneeya xaasa la daldalay jir dumarkuna waa tan aabahay waaya ama waa tan araxda ka jabaa ama waa tan sidaa noqda waa nooc dhaarahum marka dhaar dadka qaar kood ba hadii midalan la yiraahdo hebelo waxa siinay sidaa yihiin ma wallahi ba uu iska maraya laakiin hadii la yiraahdo ma waati qooriyo xirada aad ka jabtaaba uu soo taagaya wuxuu oranaya bal horta aan iska hubsado ama la yiraahdo maxaan ku iraahdaa iyadoo dhan kale looga soo wareegayo xooga iyo xawada iyana wax kale ayaa haayeen waaye ama xilafurka war waxa la oranayaa qooriyo xaraale iyo xilafur iyo walle inta noo wada mar waxa soo dhan ba istabahaya ilaa wixii mushkilada mujtamacaagu leeyahay in la sheegaay marka waa laga yaabo wallahi inuu ku dhirido laakiin xilafurkaagu iska soo taagaya qooriyo xaraalaha uu iska soo taagaya si uu marka taasi waa nidaamka jaahiliyada iyo diin yaraanta waxa laga maarmaan qofku inuu garto dhaartu inay tahay shay aad iyo aad weyn waxa uu ku dhaaranayaa magacyada Ilaahay iyo sifooyinkiisa waa inay noqoto saa nabigu kaleey salaatu wasalaam xadiidka ku tilmaamay mar labaad dhaartu ma habboona inuu qofku carabkiisa ku badiyo oo carabkood iska barta dhaarta waxay keenaysaa in been aad ku dhaaran karto ayay keenaysaa إلهينا وابديده سبحانه وتعالى وحر ربي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم دارهن مقع إلهي كبدك هوغا دغنا كبدك ما تقانا توتوغا ولي مريده بالك يرا لغو دغتمه reer magaalka qorigiisa ah ee lagu shiish barto bahal baa loo dhigaa kabdhig baa la yiraahdaa xabada la eegta
marka qofku marna uu la helaya marna uu la seegaya bahalkan wax lagu garaacaya wax badan baa ku dhacaya kabdhiguna waxa weeye meeshii murjinka iyo waranka iyo kabaa la soo dhigi jiro marka la dhici jiray marka magaca ilaahay ha ku badinina carabkiina oo curda yuu noqonin dhaarta carabkiina ha ku badinina wallaahi 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 dilaal saylad ku raagay walluhu ku raftaa kaga dhigin oo walihiisaa badan weeye macnaha waaye taasi waa taa weeye marka dhaarta xukunkeeda ayuu kaasi noqday waxa labaad oo ahayd maxaa lagu dhaaran karaa waxa saddexaad oo iyaduna qodob ah xikmadda ku jirta dhaarta waa qadcu lkhusuuma waannizaac had iyo jeer in dadka lagu kala jaro ayaa sharcigeennu uu usoo rogay maalan marka had iyo jeer la waayo caddayn wax caddayna shayga loo yaqaano albayinaat caddayn buuxda kolka la waayo waxa dhaarta loo keenay liqadci الnisaaci wاlkhusuumaat si muranka iyo dooda uu usoo afjarmo dee qofkii loo dhaartayna waa inuu aamino oo uu ku kalsoonaado dhaarta oo loo gudbo xagga qeybteeda markii hore aynu ishaarnay 3 qaybood bay noqonaysaa alyamiin اlmuncaqid dhaar guntantay wayamiin lagwi iyo dhaaraan guntamin oo magaca loo yaqaano walyamiin lkhamuus iyo dhaarta yamiin lkhamuus la yidhaahdo waxa uu qofku ka dhaaranaya ama ku dhaaranaya hadduu la xidhiidho maadigii tegey hadduu la xidhiidho waxay noqonaysaa inuu ama run ka sheegayo ama been ka sheegayo hadduu run ka sheegayo dee waa sax hadduu been ka sheegayo waxaa loo yaqaanaa alyamiin lkhamuus waa dhaarta qofka dembiga dhex gelisa khamsigu dhexgelin buu ahaa qofku dembi buu sidaa u dhex dhumbanaya dembigaa faraha badana uu galayna wuxuu keenayaa inuu cadaab dhex galo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka warramay dunuubta waaweyn markaa wuxuu ku daray alyamiin lkhamuus dhaarta beenta ah ee qofku wax horoo dhacay uu leeyahay inaanay waxaasi sidaa noqonin baa intaa dhaarigata waxaa inaan la igu lahayn waa waxu dafirayuu diidayo waxaa inaan la igu lahayn baa intaa dhaarigata ama waxaa inaan hebel ku leeyahay alyamiin lkhamuus dhaarta beentaa weeye qofkii wax dafiraya ama ha dhaarto ama qof markhaati ha dhaarto labadaba dhaarta mustaqbalka soo socda uu qofku marayo iyaduna waa yamiin muncaqid dhaar guntantay iyo yamiinu lagwi dhaar lagu tilmaamo magaceeda yamiinu lagwi oo qur-aankuna magacaa u bixiyey oo ah qeyb gooniya marka yamiinu lmuncaqid waa dhaar guntamaysa waa ta aad dhaarnimo ugu tala gasho waxay tusinaysaa cala alxathi waalmanci wataxqiiqi alkhabar saddexdaasa had iyo jeer ku jira dhaarta noocane la ydhaha waa dhaar guntamaysa waa mid uu qofku sababtu u dhaaranaya ay tahay lilxathi inuu cid tirtirsiyaabuu doonaya inaad caynkaas yeelaysaabaa wallaahiya ama manci buu uga jeedaa waxbuu ka joojinaya inaanad arrintaa gelin ayaa iga wallaahiya oo wuu ka joojinayaa markaana ama taxqiiqu lkhabar ayuu samaynayaa war buu xaqiijinayaa markaasaa wuxuu leeya in arrinkaasi caynkaa yahay ama hebel yimi ama hadalkaa uu yidhi ayaa wallaahiya waa taxqiiqu lkhabar war buu xaqiijinayaa saddexdaa midunbaa ka soo baxa had iyo jeer dhaartaa marka hadduu isu soo taago qofku inuu dhaarto yamiintaa waxaa loo yaqaanaa waa yamiin guntantay koow yamiinu laqwi waxa weeye ta had iyo jeer qofku dhaarnimo aanu uga qastina carabku un jiiro carabkay safmar ku tahay qofkii waxaad leedahay war kaalay la soo qaday wallahi ku raaci maayo kaalay halkan fadhiisana wallahi ku raaci maayo waar sidaasay tahay wallahi maaha had iyo jeer tan carabka iskaga soo noqnoqonaysa in dhaarnimada looga jeedin weeye caaisha radia allahu canha ayaa ka warrantay oo waxay tidhi waa qowlu rajul ninka hadalkiisii balaa wallaahi laa wallaahi saasuu leeyahay qof waxa uu leeyahay laa wallaahi balaa wallaahi wallaahi waa caynka wallaahi inaanay ahayn saasuu odhanaya waaya
marka dhaarnimo ugama jeedo laakiin carabkii baa maraya wallahi waa caynka wallahi maaha wallahi way saasay caaisha ku fasiraysa qawlu rajuli laa wallahi balaa wallahi caynkaas ku fasiraysa laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum dhaaraha had iyo jeer carabkiina saa u maraya ilahay idin qaban maayo laakiin wuxuu idin qabanayaa bimaa caqadtum alaymaan wixii awallanimo uga qasadeen waaya dhaarta noocaas ee qofku uu dhaaranayo waxa uu ku dhaartay baa la eegayaa haddii uu yahay shayga uu ku dhaartay wax macsiyo iyo dembiya wuu ka kafaaro gudanayaa inuu dembigaa sameeyana ma aha arrintaasi waa muhiim weeye waa muhiim nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy idaa xalafta calaa yamiinin fara'ayta khayraha khayran minha fakafir can yamiinika waati aladii huwa khayr muttafaqun calayhi xadiidkaa bukhaari iyo muslim ku sugan baa nebigu qofka muslimkaabuu la hadlaya wuxuu ku halqabsaday cabdiraxmaan ibnu samura ayuu ku halqabsado la hadlay laakiin dee waa qof kastoo muslima ayuu nebigu la hadlaya war markaad aragto markaad wax ka dhaarato dabeedna aada aragto wixii aad ka dhaaratay samayntiisu inay khayr tahay ka tegiddiisuna dembi tahay waxaad samaysaa waxa khayr kale dhaartiina kafaara gud ka bixi inaanan salaad tukanin buu ama inaanan hebelow kula hadlin dee dhaartaa fulinteeda ma khayr baa ku jira maya waa macsiyo waa dembi markaa taasoo kale samayn maayo dhaartii kusii adkaysan maayo ee dhaartaa wixii uu ka dhaartay buu samaynayaa waanu ka kafaaro gudanaya sidii abuubakarba uu sameeyey radia allaahu canhum isagii aabihii allaha ka raali noqdee markii inantiisii caaisha wax laga sheegay ayaa dadka qaarkood oo ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa nin muuminiinta ka mid ahaa markaasuu abuubakarna ninkaa uu biilin jiro dee waxa uu ka mid ahaa dadku masruufi jiray kolkaasuu yihi ninkaa inaanan wax masruufa siinin oo sidii aan waxu siin jiray aanad u siinin kol hadduu dee inantii meel kaga dhacay baa intaa walla iga yahay waa ka ilahay yihi walaa ya'tali ululfadl minkum wasacati an yu'tuu uli lqurba ilaa aakhir ilaaya dadka fadliga leh iyay ka dhaaran masaakiintii ay wax siinayeen iyo agoomihii inay wax siiyaan ha siiyeen dhaartana ha ka kafaaro guto marka siibaa abubakar yeelay nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu leeyahay markaad wax ka dhaarato wixiina aad aragto ka tegiddiisu inay dembi tahay wixii khayr lala kaalay marka waan dhaartay ha ku adkaysani weeye macnuhu inaanan hebel la hadal baan ku dhaartay inaan waxaa sameeyaa baan ku dhaartay war dhaartu uun eeg wixii aad samaysay wixii aad ka dhaaratay uun dib u eeg ma samayntiisaa khayra ma ka tegiddiisaa khayra wixii khayrahun samee buu nebigu ku leeyahy dhaartana ka kafaaro gudo kafaaro gudkii muxuu yahay sida aayadduba ay tilmaamayso waxa weeye 3 miskiin oo wax la siiyo hal mar la dhergiyo waxaan leeyahay 10 miskiin idcaamu 10 masaakiin 10 miskiin oo hal mar la dhergiyo ama iyada oo dhar loo xidho haddii uu intaa qofku kari waayana inuu soomo imise maalmood 3 maalmood waxaa kasii horeynaysay qoor in la xoreeyo laakiin dee ma hayno markaa iminka waxa yaalla un in masaakiinta hal mar uu qofku dhergiyo 10 miskiin ama dhar uu u xidho ama uu 3 cisho sooma haddaanu intaa kari karayn masaakiinta wax dhergiya unbaa la siinaya hal mar hadduu doonayo qofku u wada heli waayo kafaara gudka hal mar marna 5 ha siiya marna 5 ama 3 iyo 4 wuu ka dhigi karaa shardi maaha inay wada jiraan 10 miskiin unbaa ilaahay aayadda uu ku yidhi sida aayadda ilaahay uu ku sheegay min awsadi maa tutcimuuna ahliikum buu ilaahay leeyahy waxa aa reerihiina siisaan kiisa dhexdhexaadka ah raashin qaaliyana laguma laha sii raashinkuna inuu dee jabnaado oo adoo bariis iyo dee cunaya baasta ama raashin wanaagsan oo macal khudrada inaad qamadid dee tidhaahdo iyo wax qaraxa u dhiibta maaha waxa weeyaan inaad iyaga wixii saa aayaddu ay tilmaamaysa ka dhexaa la siinaya xagga marka la eego dharka laftiisa dee wax u noqon kara dhar shaar surwaal qamiis saas oo kale laakiin haddaad tidhaa koofiyado miidhan gashada ama sharabaado miidhan dee taasi arrin noqon mayso waa nooc caameyna taas wax lagu xisaabtamayana wixii dhar u noqon karo hadduu dhuuni yahayna iyo raashin yahayna inuu dee u noqon karo wax u tari kara ayaa muhiima ilaan maaragtay ilaahay caameynta ma ogole lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun
samafalka gaari maysan jeero waxaad jeceshihiin aa wax ka bixisaan waaya marka dhaarta wixii lagu dhaaranayay baynu sheegnay xikmadeedii xukunkeedii waxaa kalaynu tilmaanay qofku goormuu fulinayaa dhaarta goormaanuse fulinaynin haddii uu dhaartii jabiyo maxaa kafaara gud noqonaya intaaba waa in aynu xusnay weeye iyo dhaarta aqsaamteedii qaybaheedii yamiinu lkhamuus walyamiinu lmuncaqid walyamiinu laqwi saddexdaa ka ay tahay waa inaad garataa waaya haddii qofku dhaarta uu shardi ku xidho iyadana wuu heli karaa wuxuu nabigu uhi man xalafa calaa yamiinin faqaala in shaa allahu falaa xinha calayh xadiidkaa saxiixa ah uu dhaartay markaasuu yihi inshaa allah inshaa allah inshaa allah kuma dembaabayo haddii aanu wixii samaynin tacliiq buu uga jeeday markaa ma tabarug baa mise waa tacliiq dee waa marka tabarug oo tacliiq uga jeeda bay leeyihin culimadu aanu barakayst keliya ahayn waaya dhaarta dhaar dusmayn lama ogola ma taqaanaa dhaar dusmaynta waxa weeyaan haddii maalan qof uu ku dhaarsanayo oo adiguna aada si uga jeedo qofkana si u jeedo qofkaasi siduu u jeedaa unbay noqonaysa waxa uu leeyahay ninkaasi waxaygiibuu qaatay waxaygii baan ka doonayaa lacagtaydii ayaan ka rabaa wuxuu leeyahay waxaagii shilin ka mida inaanan hayninba intaa war laygu yahay iyadoo doolara buu hayaa yaa wixiisiioo doolara ayuu hayaa matalan markaasuu leeyahay waxaagii shilin ka mida inaanan haynin ayaa intaa war layga yahay dee wuu ku rumaystay dhaartii way haysataa un ama geelaagii qaalin ka mida inaanan haynin buu leeyahay awr iyo waxyaabo kaloo hayaa maaragta geeliisii ka mid a wuu ka yar hoos tusayaa nabigu uu tilmaama wuxuu uhi alyamiinu calaa niyati lmustaxlif dhaartu qofka ku dhaarsanaya sida uu aaminsan yahay unbay u dhacaysa sidaad adigu u dhigaysa maaha laakiin waa sida uu isagu aaminsan yahay sidaa uu ku qancay ayaa lagugu xisaabinaya marka ilaahay lagama hoos tuso taasina waa midku xisaabtankeeda la weeyey intaa waxaynu raacin lahayn oo isaguna baabkan la xidhiidha mararka qaarkood uu inaga dhacaaye dhaarta had iyo jeer dumarka ragga uu ku dhaarto maalan heblaaye haddaanad waxaa samaynin hal dalqad baad iga furantay ama haddaad waxaa samayso hal dalqad baad iga furantay waa tusaale un ama haddaan arrinkaasi sidaa noqonin intaasaad iga tahay marka taasi waxa weeye waxaa loo yaqaanaa yamiinun fi alaaq ama xalfun fi alaaq culimadu waxay ku tilmaamaan maadaama saddexdii arrimoode dhaartu ay ka muuqanayaan inay nooc dhaaro tahay marka aimada laba qowl bay leeyihiinoo jumhuurtu waxa ay ku tegeen in waxaa uu furay uu dhacayo hadduu hal dalqad furay hal dalqad baa furmaysa hadduu laba furay labaa furmaya kolba wixii uu furay unbaa dhacayo qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin mee waa dhaare kafaara gudkii un ha bixiyo heblaaye haddaad waxaa samayso dalqad baad furantahay buuli yaa markaa wixii bay samaysay dumarkana lagamaba karaba haddii had iyo jeer wax aad ku xidhood dhoola tuskaa u dhiibto iyana dhanka kale ugu dhufanaysa ha isku dhalaashee markaa hadday wixii samayso maxaa kula gudban kafaara gudkii unbaad bixinaysaa bay leeyihin aimada qaarkood baa saa ku tegay qaarkoodna waxay leeyihin maya waa dalaaq maalan madhabta shaaficiga oo kale iyabaa waxay ku tegeen inay dalaaq noqonayso furiin waxay ku sababeeyeen dee goortii dhaweyta waa tii aynu soo xusaynay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut qofka dhaaranaya ha ku dhaarto magaca ilaahay marka meeshiina magac ilaahay oo yaalaa ma jiro waa dalqad asmaadiisi iyo sifaadkiisi midna laguma dhaaranin markaa dhaar noqon maysee waa dalaaq iyo furiin qolyaha qaarkoodna wuxuunay ka eegeenuun xagga xafiga iyo manciga iyo waxyaabihii aynu sheegaynay ayay ka eegeen adu waa masale khilaafiya oo habka loo daliishanaya naska ayaa kala aragti ay ku noqdeen culimadu waaya taasina waa baraarujin lahayn waxaa baabkan oo kale la socdo halkan lagu sheegaa shayga loo yaqaano nadarka nadarku waxa weeye qofkii oo isku waajibiyo shay aan waajib ku ahayn nadar inagu maxaynu idhahnaa nidar bay malaa idhahaan dadku nidar ilaahay
تاسون بحق النون كون بكسرية لكن هو النذر نذر وي نذر كون مركي سهراء إن وحلقون نذراه ما هبونا والنبي يقول إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه وحول نذركو خير ملها لكن قفك بخيلك أيوم بقى وحلقة صار نفطاه بخيل وحبك سيانو بان شبكة نذرك كوسو قلية تناوحي يكون نذرون بقى مسلم كقاضنا يعني marka hore ba sadaqa aanu bixiyeen buu isku waajibinaya wuxuu leeyahay inaan intaas oo maal bixiyaaba nadar ilaahay ugu galay koow de wuxuu la leeyahay dhig uun faral buu noqday marka ninkii adayga ahaa ee had iyo jeer laga yaabo inaan waxba laga heleen kolkuu nadar sameeyo yustakhraj min maali maalkiisa wax laga qaadanaya taas waa xagga xukunkiisa nadarka isaga saddex qaybood baa loo qaybinaya qofku waxa uu ku nadray inuu waajib yahay iyo inuu macsiyo yahay iyo inuu mubaax yahay saddexaas loo qaybinaya ama si kale hadaynu u dhigno waxa uu ku nadray ma waxa weeye shay dambiya mise waxa weeye shay iska mubaaxa oo jaayis ah mise waxa weeye shay sunna ah hadduu ku nadro qofku wax macsiyo iyo dambi ah ما فلنا نذرك لكن كفارة جودك يوم بحنايا كفارة جودك نذرك إيه كفارة جودك الأرض ونوع إسكمل وتانو كفارة جودك الأرض صاش يعني كفارة اليمين وبا كفارة النذر كان النقنيس من نذر أن يطيع الله فليعطيه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه متفق عليه نبي يقول الله يقفك النذر كوك على إنه إلهي أطيعه وشيء ضاع قفك كن نذره تافلي لكن قفك معصية كن نذره يوفلني كفارة جودك هبحية برسول كله مركا وحي معصية دنبية لو نذر لما فليه نذر وحى عن كوجلاي والنذر إلهي عن كوجلاي إن أن هبل دلبوا لي أما أن دخره أما أن دبوا صلام أما أن حوره ثقات وتصالح توا معاصي وذنوب أما أنا خمر قاعبه وحنده وحدن بيهم تصالح وسوق عضو وما دقائق يا معصية ده سيدي دار تبا أن لو أوفينين كفارة جودك حق يسيبوك عيا تصوامد هدو قفكو كنا ترى شيء واجبه ما قنت مايو إن صلاة الظهور إما أنت تكذابان نذر إلهي يقول قلاي هيه دي نذركم حو سوكر إنشري واجب وجوب سوكر إنشري عبادة أننا مركا هرايس كواجب هاي مركا أن إيجاب الواجب تحصيل الحاصل شيء واجب كان سكو واجب سواء وشيء حاصل ها الحاصل قرايسه معناه هذا بو قنطمين وي وحلا مدي هينا وحبا جيرين marka kaas wixii waajiba waxba maalinta nadarkeedu ma guntamayo waxay min nadarka shayga sunnaha ah ka weeye ka uu nabigu leeyahay qofka ku nadra inuu ilaahay adeeco ha adeeco wuxuu ku nadray inuu intaas oo salaado tukado oo sunna ah inuu intaas oo sadaqa bixiyo oo sunna ah inuu maaragtay xaj isagoo xajkii hore xajka islaamka gutay ayuu nadar ku galay inuu soo xajo inuu intaas oo maalmood soomo وعبادوينكي سنها أها أيو نذر كوجلاي عبادة دا سنها هيدن بواجب نقنيس عمر بن الخطاب نبي جوح كبر عليه الصلاة والسلام نبي الله برجي جاهلية دي الله إسلامي بوح النذر كوجلاي إن بيت الله الحرام كهبين اعتكافه وإنتي أنا إسلامي بالكور مفولية ده اعتكاف سنها بيت الله الحرام كلا اعتكافه أو في بنذر كبر النبي عليه الصلاة والسلام نذر كاجا فولي habeenkii iska i'tikaaf way marka cibaado kasta oo sunna ah oo qofku uu ku nadro waxa haboon in uu fuliyo sunnaha way marka nadarkana xukunkiisu saas uu noqonaya muxuu ku nadrabaa qofku la isweydiinaya hadii san nadarka uu oofin karo shay khayra uu yahay iyo sunna ha oofiyo hadii shay macsiya uu yahayna kafaara gudha ka sameeyo فارقوها كسماية نبو نبي قارك عليه الصلاة والسلام هل كاتاجن سقى ضدك الله الله يومي بركو تاجن بركاسول واركاس سمحوها نك هالكا كتل جاني بعدك كسالة يوحى وأبو إسرائيل نك الله يلعاه وحكون ندرى إنه ما أنتوا نهلا كاتاجن هذا إنه هتلنا إنه وحبع عنين أو صام على الكور ويسحر حلاي بركاو حول الصوم كي سنها فوليو
dee waxnaha iska cuno meesha ana iska fadhiisto waar iska fadhiisa dhaha oo naftaada heeganka ka saardhe oo wax iska cuna wax iska cab soomka oo daacadiyana fuli taasuu rasuulku jahayay calayhi salaatu wasalaam xukunkii nadarku waa kaa weeye iyo maaragtay qaybaha uu leeyahy markaynu si kooban u sheegno intaa markaynu kasii gudubno waxaynu u geli lahayn fiqiga islaamiga ayaa qaybsama dhowr qaybood qayb waxa ay ka hadashaa qaybta cibaadaadka qaybta caqiidada iyo qaybta cibaadaadka soomka salaada xajka zakada iyo qaybta nidaamka mucaamalaadka wada socodka dadka iyo heshiisyada saxeexaana taana waynu soo dhaafnay iyo nidaamka qoyska taana waynu soo aragnay iyo nidaamka dhaxalka oo isaguna la xidhiidha si kooban aynu usoo ishaarnay iyo nidaam aljinaayaat walcuquubaat walxuduud dadku had iyo jeer dad la aragaya dhib la aragaya hawl wuu iska yeelanayaa bani aadamku sidaa darteed marka had iyo jeer uu duulduul ka yimaado ama dhibaatooyin uu geysto maxaa qofkii la soo gudban ama sharcigu sidee buu qofkan u ciqaabaya waaye oo qofkii marka uu qoys yeesho ee dhaqaale uu yeesho ee uu dhergo inaanu iska joogin waa laga yaabaa uu wax dakhru wax dilo bal taa cuqubadeedii baa la sheegaya halkan waaye marka halkan waxa uu ku xusayaa nidaamka dilka waxa la yidhaahdo iyo cuqubada uu sharcigu u dhigay marka horese waxaa kasii horeeya waxa dilka la yidhaahdo naf bani aadamahoo dilkeeda ilaahay oo xaaraantinimeeyey oo la dilo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay min akbar alkabaa'ir dunuubta waaweyn waliba qofka muslimkaa dilkiisa kabaa'irta waaweyn buu ku daray rasuulullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam suuratu nisa haddaad akhridana inta ilaahay cadaaba ee uu u yabohay qof mu'mina gardarro u dila ayaa iyadana aad ka akhrii karaysaa aada iyo aad bay u badan yihin nusuusta ka digaysa dilka qofka mu'minka ah khatarta uu leeyahay waaye qofka bani aadamka ahi xaq buu leeyahay xuquuqdiisana waxa u horeeya awalu xuquuqiha xaqulxayaa xaqa inuu noolaado marka haddii loo diido lagala dagaalamo xuquuqdiisa kii u horeeyo ahaa xaqulxayaa inuu noolaado dee maxaaba jira waxba soo hari maayaan lidaalik baa islaamku wuxuu ilaalinayaa xaqulxayaa markaa ka hortag buu u sameeyey wixii dilkiisa khatar ku ah halkaa aada arkaysa nidaamyada kale ummadaha kale ay ku odhanayaan dee dilka horta ha dhaco waar maahe mid baa ay dilayo khatar baa jirta maanu arag weli isagoo ku dilay waa nooc isdhagooleynay maogti ay ku dhagooleynayaan waxaa islaamku uu mamnuucay wax kala daayo qofka in laga naxiyo ayuu mamnuuc ka dhigay wuxuu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam in bir saa loogu fiiqo ayaa uu maaragtay mamnuuc ka dhigay ama qori ha ahaado ama waran ha ahaado in wax dili kara lagu ciyaaraba ayuu rasuulku mamnuucay isagoo maaragtay khatartan ka digaya wuxuu diiday qofka masjidka soo galaa haddii uu murjin sito ama waran buuri waar afkiisa ha qabta buuri si aanu muslimka iyaga ugu waxyeelayn hadduu cid bahalku jeexayo ama uu sarayo isaga ha saro jariimada noocaas aada iyo aad bay u khatar badan tahay runtii qofka muslimkaana dhiiggiisu aada iyo aad buu u qaali u yahay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay qofka muslimkaa dhiiggiisu ama dilkiisu adduunyadan oo dhan oo meesha ka baxda inuu ay ka sahlan tahay adduunyada gebigeeda oo meesha dhaafta oo ka baxda ayaa ka dhib yar ilaahay agtiisa qof muslima dilkiisa waxaa kaloo xusay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka in 3 midun loo dili karo markuu wax dilo ama uu zaani lmuxsan qof xaas hore soo maray uu yahay uu sinaysto ama uu islaamka ka baxo ee uu ridoobo 3daas in midun loo dili karo waaye qur-aanka kariimka haddii aad akhrido suuratu lmaa-ida ilaahay wuxuu tilmaamay qofka qof dila inuu ka dhigan yahay dadkii oo dhan isagoo wada laayay maxaa sababay hadda midun buu dilay waxaa sirta ku jirta ay tahay bay leeyihin culimadu xurmo keliya
ayay leeyihiin nafahan dilkoodu mamnuuca yahay hal gidaaroo keliya ku gudban gidaarkaa haddii uu mar dumiyo qofku oo uu dhagar qaban noqdo oo uu midh ku quusto intii kalena way u dhib yar tahay inuu dilo ilaan qofkani karaamo dadku ay lahaayeen buu meel kaga dhacay isaga laftiisu markii hore wax kaga gudbanaayeen buu jabiyey inuu caadaystaaba laga yaabaaba midda kale hadduu naf dilay maxaa gidaarahe kaga gudban intii kalena min ajli dalika katabna calaa bani israa'iil annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiica waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiica qofka naf dila iyadoon dilkaa xaq u yeelanin waaba isagoo dadkii oo dhan wada laaya oo kale absad mithaal dadkeennu had iyo jeer qofka wax dila waxay yidhaahdaan hebel waa dhiig qabe ama waa dhagar qabe soo wax jira maaha waa dhagar qabe bay yidhaahdaan ninkaa iska ilaaliya wariyaa ma dhagar qabi baad la hadashay maanta dirqad ku baxsata markaa waxa ay qabaan kolley qofkani nooc quusa inuu yahay oo odhanaya qaar horeba waa dishee hadday aakhiro noqoto kolleyba ahlunaar baad noqonaysaa kana raaci dee waaqicuna wuu kasii markhaati furaya rasuulku wuxuu xusay sala allahu calayhi wasalam nin 99 dilo u yimi mid cibaadaysanaya oo hi war toobad ma leeyahay maasuu hi xaggaa toobadda kuu jirtaa intaasoo dhan baabaad soo laysa dee adna hoo buul isagiina 100 buu kaga dhigay waa dhagar qabe macnaha waxaynu sii fasiraynaa qofku hadduu mid dilo inuu caadaysta noqonayo sidan aayaddaba ilaahay uu ku sheegay dadkii oo dhan uu wada laayay inay isagoo dadkii oo dhan wada laayay un ay ka dhigan tahay waxaan taa uga jeednaa qofka had iyo jeer isxigtaan ama tolkaaga haddii uu dilo qof kaloo muslimahoo isba walaalkaaya oo adigu aada garab gashaad tidhaahdo war ninku tolkiibuu ka mid ahaaye bal si aan loo dilin aan maaragtay badbaadino oo meelaha ha ku soo dhuuntay ee lacag ha la siiyo ama kii halkan jooga uu idhaahdo bal waxa loo dira beleda si aan meelaha looga helin ha la soo dhoofiya baasaboor foojariya waxuun ha loo eego oo ha loo ururiya waxba halkan ha la keeno waxaaba laga yaabaa adigaagaa u howlgala inuu kugu nabaadna soo wax dhacaya maaha maxaa kaaga gudban dee aadna fakaannamaa qatala annaasa jamiican abeesaad soo waaridatay suni ka soo kabacayso dee way kugu nabi uun marka qofka mujrimkaah waa mujrim qofka mujrimkaa dadku hadday meel uga soo wada jeedaane dembiilaha ah waaba iska dhib yaraan lahayd arrintu laakiin mujrimkaasi intuu helayo meelo uu kala galo khaanado uu galo iyo suuqyo uu ka camirtay inta uu helayo qaar baanu garanaynaa markuu mid dilay magtii laga bixiyey oo mid labaad dilay oo laga bixiyey oo markuu kii 8aad dilayba ayay yidhaahdeen ma wadi karayna kan ha loo dilo waa ilaa kii 8aad intuu soo gaadhayo taasi waa taa weeye sidaa daraaddeed ayaa sharcigeennu ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu xusay kaasoo la iska qabtay nolosha ku jirto walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab qisaasta nolol baa idinku sugan buu ilahay dadkiina aqoon-yahanka wixii aqoon leh aqoontoodu ay halkaa gaadhsiin karta inay fahmaan qisaasta nolol wanaagsan ayaa idinku sugan macnaha samaaxadda shareecadday ka mid tahay qofka mujrimka haddii mid loo dilo in inta kale laga yaabo inay badbaadayso kii sida qisaasta nolosha ugu sugan tahay waxa weeye isagu kii uu dili lahaa wuu joogayaa isagiina wuu joogayaa dadkii kale saa isu daba socon lahaana way joogayaan way badbaadayaan marka arrintaa dilka camdiga ah iyo saacidaadiisa soomaalidu baac dheer bay ku leedahay oo qofkan mufsidka ahi haddaanu garab iyo gaashaanu ogeyn waxaan wuu ka gaabsan lahaa laakiin markuu ogaya in la qarinayo markuu ogaya in dabada la marinayo markuu ogaya in dhaqaalo lagu bixinayo markuu ogaya in reer hebel loola safanayo halkaasuu dabada gelinaya marka fakaannamaa qatala naasa jamiican bay habboonta inaad aaminto waa isagiyo dadkii oo dhan laayay oo xataa adiga ku dilay ayuunbuu ka dhigan yahay waaya way dhacday nin intoo wax soo dilay uu soo baxsaday isagoo qaar isxigaan ku dhex gabanaya ayaa qaar meesha ka sanqadheen kuwii uu la joogay markaa dhagar qabana dhulkaa u dhaqdhaqaaqa baa layidhi kuwii la joogay buu qaar ku nabay laba ka dilay leanna wuu shakiyo wuxuusi waa baadidoonkii raacda reeb kaga dhig buu isidhi marka arrintaa aada baynu ugu celcelinay waxa weeyaan
ilaalintiisu macnaa inaan qofkii waa in la sheegaa isagu waa inuu isa sheegaa waajib bay ku tahay uudha war anaa dilay aakhiriya iftiinka dee dhanuun igu taliya kuwa uu ka tirsan yahay reerkoodii waa inay soo dhiibaan ay idhaahdaan waa kan arrinku idinka go-a ciddaa wax laga dilayba arrinku ka go-a ilaahay baa wuxuu uhi waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura waman qutila madluuman qof ka gardarro lagu dilo ciddii ay isxigeen faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan qofka gardarro lagu dilo dadkii ay isxigeen awood baan siiyey buu lahay dadkii ifka uu kaga tegay ee xigtadiisa awood baan siiyey awooddaana nabiga xuseen calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa oo waxa weeye inuu ama qisaasto ama mag ka qaato ama cafiyo saddexdaaba isaga khiyaaru haddaba awooddaasaan siiyey qofkaasi falaa yusrif fi lqatli dilka ayuu ku xadgudbin isaguna innahu kaana mansuuran waa loo hiiliyey ilaahay baa u hiiliyey iyo sharcigii islaamka iyo madaxdii muslimiinta dilka ayuu ku xadgudbin oo cid aan waxba dilin isaguna ayuu dili marka nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa awoodda aayaddu ay sheegtay buu fasiray saddexdaa midunbuu ikhtiyaaru leeyahay waaye sidaa darteed ayaa magta haddii xataa magba loo dhaafo qisaastii laga daayo isagaa loo bargoynaya bargooyay tidhaahdaa soomaalidu bargooyada waxa weeye wuxuu leeyahay baa lala wareegaya waxalla wuxuu leeyahay xoolaa ayaa la qaadanayaa magtii laga goosanaya ilaa intay magti dhammaanayso magtiisuna way ka adagtay magaha kale imikaa la dhigaya muddo loo qaban maayo geela la qaadayaana waa geel wada culus oo wada qaaliya 6 jir iyo 5 jir iyo 4 jir baa u yar geel qaaliya wey waqtigeeduna waa xadidan yahay keligiina waa lagu leeyahay wax tolahoo kaloo lagu leeyahay ma jiro waxba lagaagama leh ka idinka ahe wax dila magtiisa waxba lagaagama leh sidaa daraaddeed isaga ayay hawshaasi u taallaa ninkii wax dilay haddii qisaastii lagaba dhaafo magta laga doonayaa isagay u taallaa markaa laba midun bay noqonaysaa inuu xoolahayo oo dee lala xisaabtamuu iska bixiyo iyo inuu dee maqorofad qaato oo uu soo dawarsado aryaa la wax siiyey dadka la dhex maro war dhiig baa igu go-aye mag baa laygu leeyahay bal iga bixiya oo meelaha uu maro oo saas oo dowladaha oo shakhsiyaadka oo shirkadaha oo saas usoo markaa dee warsiga uu ku jiro wax waad ugu ridi kartaa haddaad dee tol tihiin oo waad odhan kartaa bal intana kusii dar yaa allaha kaa dhaafo gefkii aada gashay waaye laakiin in isagii halkan uu iska fadhiyo oo dabeetna odayaashu intay koofiyadii usoo gashadaan iyo cumaamadii rashwaaniga ahayd dhulka loo xariiqo la ydhaa maxaynu xeer u lahayn horta dee intaasaynu xeer u lahayn dee intaa waa xeerkii hore u go-aysa inta kalena hooya oo isagiina halkan uu iska qayilayo oo inuu waxbaba warka hayninba dee way u dhib yaraanaysa aroortaynu mid kale ku nabo halkaasibaa jaranjaradu halka ay maraysaa halkaa weeye saasuu sharcigu u adkeeyey waxaa la yidhaahda dilkaa khatarta ah waaya dilka noocaasi marka uu dhaco in la yidhaahdo dadkii wax laga dilay ee awoodda sharciguu siiyey intay awooddoodii weydaartaan sidaa ilaahay uga digayuu leeyuu ku xadgudbin awoodda inay iyaguna yidhaahdaan hebelkii isaga ahaaye wax naga dilay hebelka yagii uma dhigmo sooma dhacdo kaayagu nin weyn oo muddo kara buu ahaayo aqoon-yahan ahoo taajir ahoo xabadkan yara ducufka ah uma dhigmo ka mudakarsan yahay marka iska dhaqaajiya annagaa midh eegane intaa uu yidhaahdaana waa ayaan darre aada iyo aada u weyn waxaa labaadoo iyaduna khatarteeda leh in halkii maxaanku idhaahdaa waa aanadii taa hore aanadii bay ahayd in cid kale loo dilo oo la dabagalo aada bay khatar u leedahay waxaa jariimad kale ah in intoo isagii magta laga qaato oo mag ay dadkii ku raali noqdaan haddana isagii dilaan ama qaar kale dilaan waxaasoo cuduri wuu inahayaa waxaasoo cudurihi ama ka warhaya ama ha ka warhayninoo waa silsilada dheer ee khatarta badan ee dadkeenii wareerisay weliba caa-iladaha isasiixiga iyo u badan marar badan
iska daaya hebel markaasay soo xidheen iska daaya waanu cafinay magna dooni mayna dhaafnayna mid kale dilaya asay leeyihiin kii horu leega subxaan allah ilaahayna wuxuu uhi walaa tasiru waasiratun wisra ukhra waxa aanada la yidhaahdo dee halkaasuu islaamku ka taagan yahay qofna qofka kale dembigiisa inaanu qaadaynin aakhira iyo adduunyada midnaba dilku waa halkaa islaamku uu ka taagan yahay awal lxuquuq xuquuqda kii u horeeya weeye qofka naftiisa loo dayn waayo maalna loo dayn waayo sharafna loo dayn maayo cirdi iyo dheg loo daynayaana ma jiro intaba meel baa laga dhacaya marka dilka aynu usoo noqonno taasi waxay ahayd fikir guud inaad ka qaadato mowqifka islaamku uu ka taagan yahay qofka muslimka ah dilkiisa ka gaalka ah baa yimi gaalka dee qaybuu leeyahay gaalku qaybuu leeyahay mid waxaa oo islaamku u qaybiya meel qura mu wada dhigin gaalada iyo waxa aynu ka yeelayno mid waxaa la yidhaahdaa dhimi baa la yidhahda dhimi oo waa sidii baaniyaalka oo kale dad inagu dhex noolo muwaadinka labaadaho sharcigeennuna uu xukumo oo garsoorkeenna iyo maamulkeenna hoos yimaada cashuurna bixiya halka qofka muslimka ahi saka uu ka bixiyo isaguna cashuur buu bixiyaa macnaheedu waxa weeye dee islaam haybad lahoo saasoo kaloo dabeedna dadkii gaaladaa ku dhex nooliyo halkanaa iminka ku jirtaan qofka inoogu jira ee idinku muwaadinka labaad halkanaa ka tiina iminka iyaga u dhex fadhidaan qofka inoo dhex fadhiya ee sharcigeenna xukumayo kaadimi baa la yidhaahdaa midna waxaa la yidhaahdaa mucaahad ballan baa lala qortay siduu nebi maxamed loo qoran jiray calayhi salaatu wasalaam suuratu tawbana ilaahay kaga warramayo cahdi baa la dhigtay muddada intaa la eg inaynu istayno xabad joojin la sameeyo kaa waxaa soo raaca kii musta'manka ahaa oo dadka muslimiinta ah had iyo jeer ku rogaaiyo ku kiciyayuun maahe istaraatiijiyaday leeyihiin xagga ummadaha ay ula dhaqmaan oo qaarkood waxaa lala dhiganayaa heshiis qaar kale waa la isyar gaashaanbuuraysanayaa oo sibaa waa musta'man baa la ydhaha macnaha waa la isnabadgelinaya oo isagoo nebigu la dagaalamaya quraysh ayaa haddana qoolo khusaaca la yidhaahdo kaba sokaysay maka kaanuu caybatan lahu waxay u ahaayeen sirta ayay usoo qaban jireen heshiisna wuu lahaa wuu sii dhex mari jiray wuu dhaafi jiray waxalla wixii wararana way u keeni jireen rasuulka sal allahu alay waslm iyagoo gaalaa uu ka faa'idaysan jiray marka wuu nabadgelin jiro waa dhaafi jiray qaybna waxaa la yidhaahdaa gaalka xarbi xarbigu waxa weeye kaxabaddu inaga dhex ogan tahay ee bidhaantuun inaga dhexayso marka kaa dilkiisa in la dilo xoolahana laga qaato waa garbay tahay isaguna dee markuu ku arko adna wuu ku dilayaa xoolahaagana wuu qaadanaya xabad baaba inaga dhex oogan marka fiqiga loo noqdo islaamiga iyo jihaadka ka la dilayaa waa kaa weeye xarbiga ah ee xabaddu inaga dhex oogan tahay kuwan kale oo dhan waa la nabadgelinayaa siduu nebigu u nabadgelin jiray calayhi salaatu wasalaam fiqigana macruufka ku ah waaya marka kuwaa kale dilkoodu waa xaaraantinimeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam urta jannada ma helo qofka mucaahadka ah ka dilaya buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kaa ballanta lala dhigtay qofka dilaya ee shakhsiyaddii islaamka meel kaga dhacaya ee ku tirinaya dadka muslimiinta inay yihiin dad khaa'imiina intay ballan galaan haddana dilaya kaasi urta jannada ma helo adigu almuhim meel qura islaamku mu wada dhigin laakiin sidaasuu u qaybiyey marxaladahaasu ka dhigay taasi waa taa haddaba dilku 3 qaybood buu noqdaa camdi khata shibhu lcamdi midi waa dil camdi ah midina waa dil gafa midina waa dil labadaa udhexeeya maxaa tilmaantoodu kala noqonaysa dilka camdiga ahay waxa weeye qofkii uu dilayay wuu ula bareeray waxaan uu ku dilayo waxa uu isticmaalayna waa shay had iyo jeer wax dila soo intaa lama fahmin wuxuu ku isticmaalay qalab had iyo jeer wax dila dilkiisana wuu bareero hebelkan isagaa wuu la qastay marka waa camdi bud buu qaatay madaxuu ku kala dilaaciyay rasaas buu la egtay wuu ku kala jeexay waran buu ka taagay waaya irbad buu ku muday sun buu waraabiyey iswada raaci ama sixir buu ku waxeeyey ama markhaati buu ku furay beena soo markhaatiga 2 markhaati hadday soo kaxaysaan ama 4 markhaati oo been furaya qof dil loo haysta ay ku markhaati furaan soo macnaheedu inuu dil yahay maaha dilka camdiga ahay waa kaa
dilka gefka ahina waxa weeye qofka wuxuu wax dila ayuu isticmaalay laakiin qofkan ba uma jeedin ugaar buu u jeeday midalan ama gidaar buu tooganayay qofka ugu jeedine wax kale u jeeday wixii dabeedna waxay ku dhacday qof bani aadam oo saas ku dhintay khata baa la yiraahdaa khata wata aayada ilaahay ku cadeeyay ka saddexaadna waxa weeye shibhul amd ama amdul khata ayaa la yiraahdaa labadu ka dhaxeeya isaga tilmaantiisu waxa weeye qofkan wuu la qastiyay qofkan hebel wuu qastiyay laakiin agabka uu isticmaalay ee dilay baan ahayn mid had iyo jeer wax dila fartu meelaha kaga gujiyo way ka raacday la qaar baa naxo oo fulayaal dadka wadnuhu istaagay ama ul yar busaa ugu gujiyay ama uu ku dhuftay wax yaroon sida caadiga wax dilin ayuu hebelkan ula qasto way ka raacday ilaahay idankii muwaafaqatul qadarna ha ahaado dilka iyo qadarkuba ha kulmeene liiskaas buu galayaa kaana waxa la yiraahdaa amdul khata ama shibhul amd kan amdiga isaga ahkaamtiisa soo aragnay laakiin labadan kale iyaga waa magum iyagu qisaas male labadan kale qisaas male waa mag inkastoo magtoodu yara adagta yar kala duwan tahay kan shibhul amdiga labada u dhaxeeya magtiisu isaga way adag tahay oo geeli amdiga kale ayay shabahaysaa waaya xagga magaha marka la yiraahdo qofka bani aadamka waxa wax ka waajibaan ma aha oo kaliya qudhiisa ee waxa la gaarsiiyaa qur iyo qoomba uu noolaa marna qudha laga jaraa marna qoom baa loo geystaa wax kasta oo qofka bani aadamka soo gaaraya ee dhiigiisu dhowrsan yahay xaq buu u leeyahay in la siiyo wixii sharcigu qadaray xaq buu leeyahay waaye markaas dabeedna jirka qofka bani aadamka qofka muslimka jirkiisa waxa sharcigu ka qadaray xubin walba waxba laga qadaray ilaa hadii la xangaruufto oo la dilaaciyo halka ama dhirbaaxa lagu dhufto ay casayso ama la feero oo ay bararto wuxuu laga soo qaadaya isagoo deed saamaxa mooyaan karaabu leeyahay qof waaye saadarteed baa مثل ninka oo kale qofka muslimka hadii la sarrifo ilaa 2,000 oo halaad buu gaari karaa ayaa ay tilmaamaan culimadu marka ay sii wadaan ilaa 2,000 oo halaad marka jirkiisa la sarrifaado 100 halaad aha ninka muslimka ah marka la sii rifaniya lisan uu ku dhaco waslad meelo fara badan ay googo'aan ilaa isagoo nool ayuu 2,000 oo halaad ku dhawaan karaa dadku way la yaabaan marka qof nool la xaqo la yiraahdo dhowr 100 halaad baa laga xaqay war soo tiimiduuna aynu isku ogeyn 100 halaad waxaan faraha badan ka soo dareeray maxay yihiin way yaabaan dadku waxa taasi muujinaya xadiis Amr ibn Hazm ninka la yiraahdo warinayo qoraalu nabigu sameeyay calayhi salaatu wasalaam reer Yamaneed qorayay oo isagoo aan gaarin uu dhintay nabigu Abu Bakar baa shaabadeeyo markaas reer Yamaneed lagu gaarsiiyay qoraalka xadiiskaasi waa xadiis dheer ilaa 20 xukun ayuu tilmaamayaa dilkii wixii ka waajibaya qudhi iyo qoonta wixii ka waajibayba isugu jira marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka qof mu'mina dila ee cadayna la helo haddii ay ma ku raali noqdaan dadkii dhaxlayaasha ahaa waxa uu leeyahay wuxuu ilaa an yarda awliyaa al-maqtuul wa inna fi nafsi diya 100 min al-ibil boqol geela buu yeelanayaa ninkii haddii ay ku raali noqdaan dhaxlayaashii buu rasuulku leeyahay ee halkaa awliyaa al-maqtuul waa dadka xigtadiisa ahaa marka halka waxa laga fahmayaa magti waa dhaxaloon Soomaalidu ma yaqaanaan markay magti soo qaadaan tolkun baa la yiraahdaa kala qaata iyo wixii raga dumarku waxba lagama siiyo magta waxay yiraahdaan maaragtay waa mag oo marna anagana laga qaadaa marna anaga bixina marka hore konton baabay sii goostaan inta kontonka soo hadhayna dumarka waxba kama siiyaan iyaga kala qaata maca dalik magtiina waa dhaxal oo mararka qaarkood haddii ninka ay dhaxlayaan dumarkaas baa qaadanaya magtiisa ragba waxba kama qaadanayaan mar haddii dhaxal la yiraahdo dhaxalka cidda lahum baa la isweydiinaya rag baa mise waa dumar waaye mararka qaarkoodna waxaba dhici karta haddii gabadh la dilo oo mag laga soo qaado
in ninkeeda iyo caruurteeda uun ay qaataan magtii tolkeedna ka qabo sharcigaasaa odhanaya inan bay dhashay ninna way ka tagtay xaas bay ahayd oo sawjkeediina way ka tagtay iyo inankeedii marka kontonkii halaada laga soo qaaday ninkaa iyada sawjka ayu ahayd iyo inanka ayuunbaa kala qaadanaya walaalaheed iyo adeeradeed iyo kuma jiraan cidda kaliya soo raaci kartaa waa haddii aabaheed iyo hooyadeed ay nool yihiin haddii labadaasi aanay noolayn tolkeeda waxba kama raacaya marka way ku dawakhaano waxay idhaahdaan oo haddii maalan iyadu ay wax disho miyuu ninku wax ka bixin lahaa mar haddaan ninkani waxba ka bixinayn muxuu imika u qaadanaya meeshu xoog maaha waa sharci magtii baa dhaxalna waa sharcigu cidduu siiyo waaya markaa wuxuu nabigu xadiidkaa ku tilmaamay in magtii boqol ay noqonaysa xaggi diyada uu sii xusay sankiibuu xusayaa xadiidkaasaa ku sugan sanka haddii la jaro waa 100 halaad buu leeyahay sanku waa intaa jilicda san in qasabada intaa jilicda san wey haddii dul la jarana waa 30% hun bay noqonaysa boqolkiiba 30 saddexdan faraar carabkii isagu waa magtii haddii carabka laga jaro qofka haddii bar laga jaro iyo haddii thuluth laga jaro kolba inta laga jaro unbaa loo cabiraya labada dibnood iyagana waa qofka magtiisi rag iyo dumar mid kasta ahaado dabintiina de waa maguun xubnahan xikmadooda iska leeyihiin qofka xubinkaasi uu ka maqan baa garan karaya wa fi dhakari diya wa fi lbaydatayn diya waa xubnihii taranka xiniyihii waa ma gaara xubinkan kale ee maaragtay isaguna raggu waa mid gaara kii dumarkuna de waa mid gaara khatar cadiim islaantii wax gudaysay iyadana waa ama waa la qisaasi uun dee ama wuxuuna iska bixin doontaa un magtii haddii sharci la raacayo miyaa islaan dambe wax qariibta la arki lahaa maxkamadunbaa xukumi lahayd dabeedna sharcigunbaa loo bandhigi lahaa qoladan unbaa la weydiinaya islaantan idinkuna miyaa gudaysaan mise waa mag baa ka qaadanaysa warkaasiba uu dhammaan lahaa meela sokay ku meeraysanaya iyo sidanaa la yidhi iyo sidanuu yidhi iyo dhaqankaan bedelaya waxan waa meel ficil u baahan hadal waxba kama taro marka kii ninka iyo kii dumarka mid walba waa magtiisii uun waa xubin cajiiba oo runtii dee dhibka la gaadhsiinaya qofkaa yare muslimadda ah ee miskiinadda ah ee weliba sabiga ah ee naxariista mudnaa dhibka la gaadhsiinaya wax bani aadam u dul qaadan karaba waa ka wenya haddaa waalidka laftiisu dee inuu aada iyo aada uga feejignaado wey oo hablihiina maaragtay arrintaasoo kale hooyooyinku aanay ku samaynin had iyo jeer edooyinka iyo habaryaraha iyo ayeeyooyinka iyo waxaasaa ku khasba hooyada laftigeeda sibay u aftuuban tahay waxaasaa sida ay dhagaha siday uga akhriyayeen sida shaydaanka ama gudaha kala soo hadleen ama halkan kaga afuufeene kuwaasaa qasbayaba dabeed qofkii iyadoo la sitay waxaan ku tallaabsanaysa laakiin waxaan waa in laga bareedhaa oo dadka laga badbaadiyaa runtii intii hore gaadhay mooyinta dambe waaya arax jabka buu nebigu xusay iyaduna inay mag tahay qofku araxda ka jaba asulb duudka dheer intan laftan ararac baa la ydhaha ama duud baa la ydhaha laftaa dheere qotonta ee isa suran ee silsiladda ah silsiladda haddii laga jabiyey qofka yuu baaralaysba noqonin oo ha u fayoobaadeen macaanidii kaleoo dabku haba iska jire isagana waa magtiisii weeye labadii indhood iyadana waa magtii ishu haba iska buuxdo oo waxba yay quruxdeedu ka dhinmin laakiin hadduu laydhuun saa kaaga mariyo oo araggu uu tago amaba dawaba uu siiyo qofkii oo labada indhoodba ay nuurkii uu ka tago waa magtiisii uun dhabarrada soomaalidu ay isticmaalaan ee ma'muumada la yidhaahdo iyaduna waxa weeyaan iyo jaa-ifada ma'muumada iyo jaa-ifada iyo munaqilada mid walba nebigu uu qadaray ilaa waa inaad fikrad caama ka haysto waxaad kala socoto ma'muumadu waxa weeyaan madaxo qofkii lafta la jabiyo oo maskaxda aan waxba ka xigin jaa-ifaduna waa iyadoo caloosha la dalooliyo oo uu gudaha u dhaco nabarku waa shaqooyinka soomaalida weeye inay baadrool ka qodayaan baad moodaa ama bud bay sitaan ama toori marka hadalku isdhaafo kanuu markaa madaxa ilaa maskaxda gaadhsiinaya lafahoo dhan dhaafaya ama saasuu u gelinayaa toori 3 geeslaya warkoodaba waaba intaaba ilaa haddii aanu halkaa gaadhin maba aarsanayaba marka waa 3 iyo 30 halaad iyaduna
mid waliba taxagan iyo taxaganiba waaye 330 way ayuu qaaday bay dhaadaan inaga way la qabsadeen moogti farabadin markay ku farabadatay ayay yiraahdeen ninkii hebel dakhar buu ku dhuftay wallahi 330 ku qaaday lafiyo dhan baa jabay munaqiladuna waxa weeyaan waa marka laftu dhaqaaqdo marka wax lagu dhuftay laftu ay halkii hore ka kacdo meel kale ay tagto faruhu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam far waliba ragga waa 10 halaad far waliba waa 10 halaad marka 10 ka farood ayaa qofka magtiisii noqonaya sooma haddii kuwii cagaha lagu darana dee mid waliba waa inta kuwa caguhuna waa magti ilig waliba waa 5 halaad waaye dee 5 baa lagu dhufanaya hadduu dawa cabsiiyo oo kaba soo daadiyo ka war jaad sunaysan buu dhiiba markaasay ka daateen wixiiba way dhici kartaa dee wuuna loogu dhufanaya 5 baa loogu dhufanaya tiradoodii iligu haddii uu madoobaado manfacu ka tagana waa la mid intuu madoobaado dhakhtarku markuu sawirey wuxuu leeyahay kani ka wax qaba dambe male marka haba ku jiree kol hadduu madoobaado dhinto waa nooca xubinku sidiisaba hadduu madoobaado ama uu noqdo wax qalalay oo aan shaqaynaynin waa loo soo qaadaa waaye wuxuu nabigu xadiidkaasi raaciyay in ar-rajula yuqtalu bil mar'a ninkii gabadha waa loo dilaya hadduu gabadh dilo waa la dilayaa isaga ee la odhan maayo isaguna wuxuu ahaa nin lab iyaduna dhadig baa hayday loo dili maayo la odhan maayo ee waa laba nafoodun waa loo dilayaa markuu geelaa soo tiriyay wuxuu kusoo gabagabeeyey wacalaa ahli dahabi 1000 diinaar ciddii dahab iyo lacag haysatana waa qiimo geelna waa geel wixii gooyaana waa geel marka waa in raydka qiimaha uu suuqa ka marayo iyo saylada geel ayuunbaa lagu dhufanayaa un marka la doonayo in la qiimeeyo waaye halkaa waxaad ka arkaysaa mithal mararka qaarkood waxaan xukunaa qof rasaas dhabarka ka dhacdo intani baktiday intaas kol hadday baktido qaarka dambe oo dhan baa loo xisaabinaya xineeyihii xubintii taranka maxaan ku dhahdaa cagihii baryaha laftigoodii labadii baryooda qalila saxaradii kaadidii yaa halkaasaa laga wadaya ka ilaa 800 halaad 900 halaad inuu gaadha laga yaaba isagoo baaskeeladii yarayd wata oo riixanaya laakiin maxay 900 halaad ugu yaalaan kol haddii loo sarifayo oo loo arbacaynayo oo looga dhigayo wax yar oo qiimahoodu daciif yahay waxba ka soo qaad ma yeelanayo haddaba qisaastan aynu ka soo warramaynay marka la qisaasayo waxa lagama maarmaana labada qof inay isu dhigmaan oo macnaha qofkana laba qof oo muslimiin ay wada yihiin oo xagga dayaanada diinta isku mid ah qofkii muslimka gaalkii looma dilayo ciqaab kale oo la mariyaba waxa kale oo iyadana shardiya inaan waalid u ahayn kan wax dilay hadduu waalid yahay iyadana looma dilayo ubadkiisa mid ka mid ah hadduu ku dhagaroobo laakiin ubadku hadduu waalidka dilo iyagana waa la qisaasaya waxa kaloo shardiya dadkan qisaasta xaqa u yeeshay inay isla waafaqaan qisaasta haddii maalan 5 qof dhaxlayaal yihiin ama qofkan la dilay dhowr caruura buu dhalay warma ma lagu qisaasaa labana waxay yiraahdeen ha labana maya labada maya yiri baa la raacaya magun baa meesha ka sugmaysa waxa isweydiin la qofkii haddii 5 qof dilaan ama tiro badan dishay maxaa xukunkiisu noqonaya intooda dhanba waa la dilaya hadday 10 nin wada dilaan mid kaliya 10 kaba waa la dilaya Umar ibn Khattab baa waqtigiisii 7 leefsiiyay riwaayinka qaarkood say tilmaamayaan qaarna waa ka badiyaan marka wuxuu reer Sancay ka mid ahaayeen war Sancay gabigeedu hadday nin qura u heshiiso muslimiin ay dilaan waan wada layn lahaa buu culum baynu ku saari lahay waaye ilaa haddii kale la yiraahdo cadad badan markay qof isugu tagaan lama laynayo haddii la yiraahdo maxaa dhici lahaa deekii la doonayaba darsin un baa isu kaxaysan lahaa dadna la isba weydiiyeenba marka albaabka islaamku uu joojiyay sida kale cagsigeeda ama basidkeeda haddii qofku uu dilo darsin dhan 10 qof buu dilay ama 20 qof buu dilay intuu qori qaatay iyaga maxaa la yeelaya qisaasna way wada doonayaan waxay dhamaantay qisaas baanu rabnaa waa loo qori tooriyo ilaa nafa badan noqon maaye waa loo qori tooriyo ka qoriga u soo baxo ayaa loo qisaas inta kalena magbay leeyahay ama isaga ha ku yeesheen ama dawladda islaamku ha bixiso ama cid kale oo caawisa ha la helay intii kalena magbay yeelanayaan marka la dilayo waxa lagu dilayaa wixii uu ku dilo kale
ومحاد وقلنا حيسا دي وحي وكدلو كلهم بالغو دليا دي اسبا وحبو كدلها كنح هدي من لون نحيا مسكين كمظلوم كأبيتين لون نحيا هراء قاربا إلى أرساسي أرمان حقوق الإنسان كوافق سنين وميانو إنسان هاين كي هراء للدلي هذه أنا أساسه كلا لجودي للدورة هذا ضالين كون نحضر وقت جي رسولك صلى الله عليه وسلم ني يهودي إنير أيها لا يعرف عرابنا إيس يهودي مركز تو يهودي ولا جوني النقطة والنبي يقول له قف مسلمة ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله مركز تو كجوني النقطة قف يهودي قف مسلم أو حكف كراون دلكيس إلهي بوش جاي النبي عليه الصلاة والسلام إن أنت ريت نبوسية لبرنا جحبوا سوبر كيام هذا حكم بشاقي بل حريب بشاقية هي دقيقة هايسة هي لو يمويا كدلو وحي عدو هذا لا تريم هبل با كدلي مهبل با كدلي مهبل با كدلي markii isagii la soo qaaday bay staatiri ma hadli karayso isagii baa loo yeero uu qirtay laba dhagax buu nabigu u dhigo uu ku bashaaqay bal yaa ku bashaaqindee waaye yaa imika u bixi waaye marka taas waxay tusinaysaa qofka wixii uu in lagu dilayo laakiin waa markuu sharcigu ogol yahay hadduu sixir ku dilo ka war ama sina ku dilo ama liwaad ku dilo yaa la mari dee la dariiqada xalaash ah marka uu ku dilo ayuunbaa wadada la maraya dariiqa xaraana hadduu ku dilo waa seef iyo rasaas iyo wixii lamida baabka intaasaynu ku soo gabagabaynay waqtigii baa intaa ku dhamaaday saacadaha وهذا ما أقوله وأستغفر الله جزاكم الله خيرا كل درس كأنه سوى الدين تاسو إما كأنه وجهه قدرنا أيوة إنه كسوة جبين دونا